inaan ummadda Soomaaliyeed u cadeeyo markasta waxa la yiraahdaa waxa wada hadlaya Soomaaliya iyo Somaliland. There is no Somalia and Somaliland. There is SNM group who are playing a victimize themselves, always saying victim, we are victim, we are victim. Everybody in Somalia is a victim for somehow. So they have to stop the nonsense of saying Somaliland and Somalia talk. There is no SNM. They can talk with other Somaliland groups who are the Somali region, that is North Somali region. So there are no SNM responsible for Somaliland by themselves. There is a lot of ethnic claim who are responsible for Somaliland, and they call them all Somaliland. This government, which is Hargeisa, Burco and Berbera, are SNM group warlords. So they are no longer the name of Somaliland. And the Somali people, they have to stop for making a nonsense for Somaliland and playing with their victimizing themselves. They say, oh, waa inaan u garownaa, waa la dilay. Wax la dilay male, iyaga ayaa dadka laayay. Waxa ay u laayeen waa khiyaanada hadda ay u wadaan oo gobolada kaleeto ay ku wadaan oo ay rabaan inay Soomaaliya dagaal kaleeto dib uga bilaabaan. awalna iyagaa bilaabay, haddana iyagaa wada. Marka waa in la joojiyo wax Somaliland la yiraahdo ma jiro. Markii la wada hadlayana waxaa loo hadlayaa gobolada waqooyi, Puntland iyo Soomaaliya. There is no Somaliland anymore. SNM group, you talk. That is what I want to hear. SNM group.